weligaa ma isweydiisay sababta Soomaaliya sanad kasta kaalmaha ugu horeeya ay uga gasho wadamada ugu amniga xun, ugu musuqmaasuqa badan, ugu gaajada badan, ugu dhaca badan? Arrintaas waxyaalo badan sababa oo aad u fara badan, laakiin waxaan idin wadaagaa laba qodob oo kamid ah. Qodobka koowaad horta waa maamul xumada, oo Soomaaliya waa wadanka ay ugu fududahay ama ay ugu dhibka yar tahay inaad mas'uul ka noqoto. Sababta waxaa laga yaabaa adigoo qorbaha taxi driver ku ah inaad wadankii aado, kadibna qabiilkiinu ay xildhibaan ka dhigtaan, sidana aad mas'uul ku noqoto, wasiir u sii gudubto, safiir u sii gudubto, laga yaabo inaad ra'iisul wasaare isu noqoto, inaad marka dambe madaxweyne noqoto laga yaabo. Waxaa laga yaabaa sidoo kale adigoo derbiga iska joogo wax aliyaal waxaad baratay, wax aliyaal waxaad taqaana jirin, inaad nin adeerka ah oo wasiir ah u tagto, kadibna agaasimo ka dhigto, sidana aad dowladda ku gasho. Sidoo kale waxaa laga yaabaa adigoo dilaa ah oo dadka dhaca, masaakiinta laaya, in xil lagu dhiibo, kadibna saa ku noqoto nin mas'uul ah. Marka qodobka koowaad waa maamul xumada, oo ummaddu hadduu hoggaanku ka xumaado wax u hagaagaya ma laha. Qodobka labaadna ee arrintaas sababa waa cadaalad darrada, oo haddii cadaaladdu suusho wax hagaagaya ma laha. Qof kasta oo cadaalad darro lagu sameeyo oo xaq darro lagu sameeyo wuxuu isku dayaa inuu xaq gacmihiisa ku dhacsado. Taasna waxay sababaysaa in dadku islaayaan oo isnacaan, oo qof kasta uu qofka kale iska ilaaliyo. Marka labada arrimood yaa ugu waaweyn sababta wadanku maanta xaaladda aragno uu ugu sugan yahay.